Bismillah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Ijaabo Maxamed Muuse, Ijaabo Afrikaan, xogayaha ururka haweenka gobolka Mudug. Waxaan rabaa inaan halkan fariin kooban oo ka dhana kufsiyada soo badanaya waayadan dambe deegaanada Soomaalida ku soo badanaya. Fariin kooban oo ka hortagaysa aanu u dirayno bulshada Soomaaliyeed iyo cid kastoo ay qusayso ayaan rabaa inaan si kooban halkan idinkula wadaago. Kufsigu wuxuu ka mid yahay dhibaatooyinka waayadan dambe ee aadka inoogu soo badanayay deegaanada Soomaalida. Waxyaabaha lagaga hortagi karo waxaa ka mid ah dhowr qodob baan rabaa inaan isdul istaago. Waxaanse anigu uga dhigayaa main point. Kufsi haddii la rabo in laga hortago waa in la suuliyaa qodob kasta oo sahlaya in kufsi dhaco, qodob kasta oo sahlaya tacaddi loo geysto gabar Soomaaliyeed. Qodobada waxaa ka mid ah daraagiska waayadan dambe aadka inoogu soo badanayay. Dowladdu inay 100% geliso daraagiskaas, inay joojiso in daraagiskaasi waddanka laga suuliyo. Mar kasta oo daraagiskaas la suuliyo waxaa macquul noqonaysa in dadku iyagoo miyirkooda iyo maskaxdooda qaba aanay dhibkaa geysan karin. Qodobka labaad isagana waxaan rabaa inaan isdul taago loogaga hortagi karo inay iyagu gabdhaha mararka qaybtood iyagaa waxay yihiin causeska dhibaatadan, sababaha dhibaatadan mararka qaybtood iyagaa noqda. Sidee ku noqonayaan? Qofkani ay haasaabo wadaagga yihiin maba yaqaanaan, waxa uu yahay ma yaqaanaan. Saacadda ay la ballamayaan waxaa laga yaabaa inay qariso oo faamilkeeda iyo dadkeeda aanay la socodsiin, qofka ay la sheekaysata inaan la aqoon. Sidaas darteed inay mararka qaybtood sahasho baylaha in laga helo, in gabadhii waxa weeye ima aaminsanid iyo aamin iyo igu kalsoono iyo sheekooyinka inta loo akhriyo hadhowna in la yiraahdo dhibaatada loo geysto. meel cidlaa lala tago dee wixii lagu samayn kara lagu sameeyo, cid kaa celinaysaa male, meel cidlaa wada joogtaa. Laakiin haddii la yaqaano qofkaa raacday, la yaqaano qofkani waxa uu yahay, waxa uu galay, waxa uu gudo, bulshada Soomaaliyeed inna wax kuma kala qarsoona. Haddii qofkan ahaasa wadaaga tihiin shaki kaa galo 1 minute wax ka yar waxaa kusoo ogaan kadhaa qofkani waxa uu yahay. Sidaas darteed waxaan rabaa inaan gabdhaha Soomaaliyeed uga digo shukaansiga waayadan dambe aad moodo inuu kalsooni yahay. Waxaan ugu leeyahay kalsooni isii, ninkan aan shukaansado 100% kalsooni ah ayaan ku qabaa inaan dhib ii geysan karin. Hadhowna qofkaasi aad 100% siisay, Soomaalida hore ugu mahmaaday dad iyo duurba waxaadan ka filayn waxa weeye wax walba kaaga soo bixi kara. Qof bini aadam ah wadan aqoon, wadan la dhaqmin, oo waxa weeye sharaftaada iyo cirsigaaga iyo gabarnimadaada marna isaga aanay wax qiimo badan ugu fadhin. Marka waxaan rabaa inaan gabdhaha uga digo sometimes mararka qaybtood idinkaa waxaa tihiin sababaha tacadiyada qaybtood dumarka loo geysto. In marka waxyaalaha lagaga hortagi karo waxaa ka mid ah idinku inaad joojisaan dalool kasta oo waxa weeye tacadigaasi kugu soo geli karo. waxaan rabaa marka inaan iyadana ka hadlo dhibanaha waxaa loo soo qaban karaa in dowladdu ay iska saadho, xoog iska saadho in qofkan dhibkan geystay haddii la hubo la xaqiijiyo inuu yahay isaga inaanu badbaadin, marnaba inaanu badbaadin qofkan. Haddii qof ama 2 ama 3 dhib geystay bulshada horteeda inta lasoo istaajiyo dhibaatadii uu geystay laga jaro, waxaan hubaa 100% in aafadan yaraanayso oo xoogaa bal si uun usii yaraanayso. gabar ninkii kufsadaa inta la qabto in la mariyo xaqiisa la mariyo, waxaa mudan oo shaqadaasi leh dowlad weeye. sidoo kale waxaan rabaa waxaa laga yaabaa mararka qaybtood inay dowladba ka baxdo oo family tagto in la yiraahdo waa in hebel baa gabadha kufsaday, isagaa wax yeelay, aan xeer Soomaaliga kale ku dhaqmin. Ilaahay ha looga cabsado, mas-uuliyaddan la hayo qofkan dhibanaha ah madluumka ah daalimka marna garab ha siin. hadduu walaalkaa yahay, hadduu saaxiibkaa yahay, hadduu ehelkaaga yahay, daalimku mar waliba waxa weeye garab ma mudna, marnaba garab ma mudna. wuxuu kaa mudan yahay haddii isagoo ku caddaato
haddaad odagiisa tahay, haddaad aabbihiis tahay, haddaad walaalkii tahay inaadan u naxin sababtoo isagaa dhammaantay u naxday. hadraawa hore u yidhi godob aabba falaybaa ubadkiisa gocndhiyo gomarshidan ku noqoto gabi dheer ku dumisee waxaad dhibka aad gelaysiyo waxaad geysanaysaad galab kale ka sheekeen. yacni maanta dhibka adiga aad geysanayso berri carruurtaada adeerka iyo awoowaha u tahay bay ku soo noqonaysaa marka. odagaan marka wiilkan iyo qofkan dhibka geystay marnaba ha u naxin, isaga ciqaabtiisa ha maro si aanu u galaafan bulshada inteeda kale ee isaga ku xeeran. way jiraan hablo qareema ah laakiin inay si gaara isugu xilsaaraan inay qareen u noqdaan gabdhaha dhibaatooyinka loo geysto tacadiyada kufsiga, inaanay marnaba ka harin inay qareemo gaara oo gabdhaha noqdaan, in laga helo stationiska boolisyada, xarumaha booliska in laga helo goobo gabdho si gaara ugu tababaran tacadiyadan dhacay, inaanay cidna looga aabayeelin dhibaatooyinkan dhacay.